daynile degmo qaabisha dalxiisayaal dalka gudihiisa jooga iyo kuwa dibadda ka imaada waxayna ka mid tahay degmooyinka waqtigan ku baratamaya qaabilaadda iyo soo dhoweynta dalxiisayaasha. degmada daynile waxaa degmo ahaan loo aqoonsaday sanadka markuu ahaa 1974 waxayna ka kooban tahay 6 waaxood oo kala ah waaxda Ciise Cabdi, waaxda Barwaaqo, waaxda Dibiley, waaxda Halgan Exraadel iyo waaxda Kordamac, waaxda Dar es Salaam. waxaa kaloo jira dhowr waaxood oo maamulku uu doonayo in hadda uu ku soo daro degmada maadaama ay daynile baaxad ahaan ay aad u weyn tahay. degmadu waxa ku yaala dhowr warshadood iyo xarumo ay lahaayeen ciidanka xoogga dalka. waxaana waqtigan degmadu ay sameynaysaa horumar xawaare sare ku socda waana tan sababta in bulshada daynile ay si iskuud u dhistaan wadada dheer ee degmada dhexmarta iyo xarumo kale. wallahi horta wax walba waxay u baahan in lagu dadaalo wixii lagu dadaalana waxba ka soo baxa marka annaga horta waxaan ku dadaalnaa waxa kamid ah in horumarka degmada qaybaheeda kala duwan amniga ugu horeeyo waxaan isku daynay in dadku shacabka ah oo degan iyo dadka shacabka ah oo imaana iyo cid kasta oo imaanaysa inay si nabad ah u timaado danaheeda ay u qabsato kana laabato xilliga rabto habeen iyo maalinba waxaan u taaganahay annaga habeen iyo maalin waa in deegaankan uu noqdo deegaan horumar leh oo dadkuna ay isku aamini karaan amni ahaan marka horumaradu waa noo bilaaban yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa xilliga ka dambeeyo in ay sii kordhi doonaan walaal ismaheedii hadda waa bilaaban yahay aan dhihi karnaa waana soconaa insha Allah waa soconaa wuxuuna soo gaaraa ilaa ay meesha loogu talagalay waxaan rajaynaynaa waliba rajooyinka hadda aan helayno iyo maaragtay gacansiinta aan helayno in ilaa webiga way doona umaleynaa oo isbitaalka aan ku sinaa doon ballanqaado badan annaguna deegaan ahaanna waa isxilqaamayni gobolka Banaadir dawladda dhexe cid kasta ayaan ka dareemanaa ganacsatada in ay ballanqaad noo wada sameeyeen inay maartay gacan naga sii doonaan marka hadeen gacanaas aan helno annaguna san ogaan isku tashanay inaan gudbi doono umaleynaa oo laami oo gaari doono webiga. arrimaha bulshada dhammaan waxaa shaqeeya xarumaha loogu adeego bulshada sida MCH-ka waax laan tabeele waana mid si joogto ah loogu khidmeeyo shacabka ku dhaqan degmada daynile. sidoo kale waxaa degmada ku yaala isbitaalka weyn ee daynile kaas oo lagu qaabilo ku nool degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah gobolada. arrimaha bulshada degmada daynile waxay kamid tahay degmooyinka gobolka Banaadir oo arrimaha bulshada ka shaqeeyaan sida caafimaadka oo kale waxbarashada istaaladii MCH-da shaqeeya waxbarashada iskuulaadka iyo jaamacadaha ku yaala sidoo kale waxaan degmooyinka qaar kaga gediisanahay dadka barakacayaasha oo runtii degmada ku nool oo in badan aan wax badan ka qabanay deegaan siinay ay ku noolaadaan sidoo kale eedaha ugu yeernay amaankooda sugnay markii wax loo helana si qurux badan oo aan musuqmaasuq iyo cadaalad darro aan ugu qaybinay yihiin bulshada kamida ay dareensan yihiin in qayba kamida bulshada degmada degan ay yihiin aysan dhib qabin guud ahaan arrimaha bulshada degmada iyo horumarka sidoo kale waxaad aragtaa degmada in ay socdaan mashaariic horumarineed iyo dhismooyin wadooyin jidcadayaala waxaad aragtaa sidoo kale inuu socdo wadada laamiga wadada laamiga isku xirta gobolka Banaadir iyo Shabeellooyinka. daynile waxay xuduud wadaag la tahay labada gobol ee Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe waxa ay kaga duwan tahay degmooyinka kale ayaa ah in ay tahay degmo xiriirisa 3 gobol oo Soomaaliya kamid ah. hadda wadooyinka ugu muhiimsan oo degmada way baxsan yihiin labada Shabeelle wadooyinka iyo gobolka Banaadir ay degmada isku xirtaa dhamaantoodna waxa maamulkan hadda wuxuu ku guuleystay in uu furo wada isku xirta labada Shabeelle oo ninka oo degmadan ay mas'uul ka yahay marka howlaha aan rabno inaan qabanno haweenka oo laf dhabarta bulshada ayaa kaalin weyn ku leh horumarka ay daynile sameynaydo iyada oo qaabisha caqabad kasta oo degmada soo wajahda haweenka ayaana dhaxad u xirta. waa degmo sida aad dareemaysiin horumarku hadda aad ugu socdo waa degmo israacday haddii aan iraahdo haddaan dhankaas ka fiiriyo waa degmo israacday maamulkeeda iyo shacabkeeda dhan ay isdaba kaceen ay hal wado wada tiigsanayaan halka wado oo ah horumarka degmada hadday noqon lahayd isku xirka bulshada hadday noqon lahayd horumarinta wadooyinka hadday noqon lahayd dhismaha degmada
waxaan dhihi karaa door muhiima ayuu horta maamulka degmada ka qaatay. dhalinyarada waa udubdhaxaadka bulsho kasta oo dunidan ku nool maadaama wadanka 70% ay yihiin dadkiisa dhalinyaro. Daynile waxay dhalinyaradooda garab istaag u muujiyeen maamulka oo ay ku dhiirigeliyeen in degmadu ay sameyso horumar ballaaran oo waqtigan dadka degmada Daynile ay dareemayaan. dhalinyarada degmada Daynile waxay doorka ay ka qaataan waxa kamid ah horumarka degmada, ka shaqeynta amniga iyo wacyigelinta dhalinyarada sida dhalinyarada oo maandooriyaasha isticmaasho. 24 saac kasta waxaa 10 saac ka mid ah garoonkan salaxa ku dheela dhalinyarada degmada oo si bilaash ah maamulka ayaana ku dhiirigeliyay qabsoomida ciyaaraha si ay ugu diyaar garoowaan tartanka degmooyinka gobolka Banaadir. halkani waa degmada Daynile xarunteeda waa xilli habeena runtii waxa aan ku guda jirnayna waa hawlihii shaqo ee naloo idmaday kuwaas oo ay xubin ka ah xafiiska arrimaha bulshada qaybteeda isboortiga waxaana maaragtay waqti walba u taaganahay awaamiirtii naga soo gaartay ama nooga timiday fariintii ahaaday gobolka in aan waqti walba bulshada ku dhaqan degmada aan horumarkeeda isboortiga aan ka shaqeyno dhan walbo ha noqoto kubadda cagta ha noqoto basketkii ha noqoto handballkii ha noqoto fuustalkii ciyaarihii fududaay intaba runtii wax waliba waxay ku yimaadaan dadaal haddii uusan maamulka aad la shaqeysa ay ku garab taagnayn waxba ma ku suuragelayaan. amniga waa muhiimadda ugu weyn ee maamulku xil gooni ah iska saaray si bulshada Daynile iyaga oo jawi nabadeed haysta ay degmadooda ugu noolaadaan. waxaa jira howlgallo ay ciidamada si joogto ah ugu sameeyaan waaxaha Daynile ay ka kooban tahay waxaana howlgalladaasi lagu soo qabtaa koox dadka taleefanada ka dhaca iyagoo sita mindiyo balse hadda maamulku waxa uu ku guuleystay inay soo afjaraan burcadaas. ammaanka horta degmada Daynile niyo 100% waaye alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay ayaga u mahad celinaynaa guusha quruxda badan ee amniga degmada Daynile har iyo habeen iyo maalin intaba ha noqoto qaybaha dalxiiska ama ha noqoto qaybaha dadka qaxootiga degan yihiin. Daynile waa degmo aad u ballaaran wad ogtahay ilaa iyo waxay ka soo rogmataa Tawfiiq Suuka Yaaqshiid inta ka soo sukayda ilaa iyo inta ka dhaxayda Ex Control duurkana waa u jeedaa inta uu leeyahay duurkeeda duur aad u ballaaran waaye. ammaankeeda saas ay tahay iyadoo saas u weyn haddana alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddii habeen midna ma ogolin in qof shacab wax lagu yeelo dhagar qabayaasha ama cadawga sidoo kale oo kala dagaalanaa ilaahay guulo badan ayaa ilaahay naga gaarsiiyey. marka Daynile amnigeeda 100% way aad u fiican yahay sida dadka gobol magaalada marka weydiiso su'aalo badan ayay ka weydiinayaan waxay ku leeyihiin Daynile ka shaqeysaa amnigeeda ka waran markay arkaan xilliyada aan ka imaanayno way ku weydiinayaan waxay leeyihiin see xilligan degmada Daynile uga timid laakiin annaga markaan ka shaqeynayno ama aan ku dhex jirno waxay noola tahay magaalada gudaheeda waa nooga ammaan badan tahay waayo annaga shaqadii aan ku dhex jirnaa waan aragnaa wax ayaan u marnaa habeen kaste roondooyin ayaan ka sameynaa haddaan nahay guddoon waaxeedyada iyo waxa dhan iyo taliyaha saldhigga iyo aad aan uga wada shaqeynaa dad isku xiran oo waxaana maamul oo isgarab taagan hariya habeen oo shaqooyin fiican guddoomiyaha degmada sidoo kale habeen iyo maalin waa isgarab taagannahay waxaan ka wada shaqeynaa amniga ugu muhiimsan oo mar walba aan iska kaashanaa ciidamada booliiska iyo anagoo iskaashanayna ayaan si toos uga howlgalnaa xilli walbana waxaan ka qabanaa tuugadii hadda annaga waxaan aad ugu faraxsannahay dadkii ku dhici jiray qoryaha iyo biskooladaha inaan inta soo gabagabayno saan u wadnay hadda ay marayaan degmada Daynile waxa ugu badan bishii ugu dambeeyay dhacdooyinka aan aragno waxay ahaayeen in toorey wax lagu dhacayo ama wax lagu dilayo ayagana 80% waa soo qabanaa intii tooreyda wax ku disha iyo intii ishaag wax ku dhacda intaba. booliisku waa ilaaliyaha bulshada waxa uu u taagan yahay in cadawga uu ka difaaco bulshada Soomaaliyeed. booliisku Daynilena waxa uu har iyo habeen ugu jiraa sida uu bulshada si dhow ula shaqeeyo si meesha looga saaro kooxaha doonaya in dadka ay dhibaateeyaan. waxaana hoggaanka degmada haya dhalinyaro u istaagtay in Daynile ay noqoto degmo nabdoon oo baratan xoogan la gasho degmooyinka kale ee gobolka Banaadir. habeenkii waxaan qabanaa roondo oo xaafadaha oo waxaan ku sameynaa baaritaan checkpointina oo noo yaalaan oo ciidanka ayaa waxay ku baaraan mootooyinka iyo baabuurta degmada waxa waaye xaaladdeeda u jeedin waxa waaye waa mid la isku haleyn karo waxyaabaha ugu dhib badan waxa waaye tuugada oo midida waxaas wax ku dhacaya wax kale oo qoryo wax ku dhacaya ma jiraan waxyaabahaasna waa ka hortagnaa kuwa badana maxkamad u geynay marka waxaan rajaynaynaa in si fiican shaqada noogu socon doonto ilaahay nafta u gaarsiiyo waxayna noogu dhammaan doontaa guul
idinkana waa maasantiin aad iyo aad u maasantiin waxa ugu badan uu maamulku uu ku dadaalaan ayaa ah in bulshada cadaalad ay helaan waxaanu maamulku qaadaas maalintii 3 kiis ilaa 4 kiis oo ku saabsan isqabqabsi xagga dhulalka ah waxaanu maamulku uu ku dadaalayaa in waqtigan dadka ku dhaqan degmada Daynile ay cadaalad helaan horta waxa noogu daran anaga waa dhulka dadkii dadka laga qaadanana ma aha waxa arkaysa kuwa ehel isu ah oo is haysta kuwa dhaxal isku haysta kuwa boosas isku haysta waxyaabaha noogu badan oo dhibaatada ugu badan oo nagu haya horta waa dadka dhulka isku haysta wixii is haysta markii inuu yimaadaan waxaan u gudbinaa anaga hay'adaha sharciga oo maxkamadaha kale iyaan isaga gudbinaa markii ay wax soo kala dhahan muddo ka bacdi inuu soo laabtaan ayagoo cidii gardaran iyo cidii garleba wax soo kala yiri markii inuu soo laabtaan cidii garta soo hesho dhigir cidaas wax iskale halaala shaqeeyo oo cidii wixii lagu wareejiyo qoladii kale la gar hel gar qaadamayso dhulka naga la dhacay inta laga booday inta laga baxay qof dhulkeeda qof dhici kartaa horta ma jirto sida mitir qof raada qof dhici karta ma jirto laakiin qoftii aan waxba lahayn oo sharci inay qayliso oo ay wax ku hesho rabtay markii sharciga la isla aad wax soo weyso waxay rabaan iska sheegan dadku laakiin waxa sanan dhigdal u sameeyno cidii wax iskale oo wax sharci la timaada inaan la shaqeyno qasbana aan xaqeeda aan la maartay la doono Ibrahim Xaaji Yusuf warbaahinta gobolka Muqdisho